dhegta si fiican u fura reer Jabuutiyo dulmiga halka aad ka arkaysaan ee 24 saacadood halka la idinka tusay waa wax la inagu itixaamayo waa wax ilaahay inagu itixaamayo waa wax maalinka qiyaamaha la ina soo joojin doono la inagu itixaami doono la ina weydiin doono walaalkeena ku tukanaya kaniifka ku dhex tukanaya ee kaniifka ku dhex nool waxa aynu uga hadli weynay waa la ina weydiin ma garanayo inaad aragteen inaad ila dareenteen inta uu Fuad xiran yahay 2 jeer ayuu dalku gariiray Jabuuti 2 jeer ayuu dalku gariiray inaan kaliga yahay iyo inay umadu ila dareentay way soo sheegi doonaan waxana calaamado ku tusaysa ina la idinka doonayo ficil inaad sameysaan reer Jabuuti hadal iyo waqtigii hunu loo baahnaa midtoona ma joogno aniga oo deeqa ciise duhura waxa aan halkan aan idinka leeyahay oon maxaa la yiraahdaa idinka soo diraya fariin aad u culus oon ku doonayo beritoole jimcaha inaad ku garab joogsataan walaalkiin Fuad Yuusuf Ali oo qabri looga dhigay kaniif looga dhigay qabri oo noloshiisa dhimashadii ku sugayay halka geesi kama madidin waan idinku calinaya 100 Fuad ay idinku jira 100 Fuad ayaa idinku jira 200 Fuad ay idinku jira milyoonkeenuba waxaynu nahay wada Fuad milyoonkeenuba waxaynu wada nahay gaari waxaynu nahay dadka aan iskala qaadqaadin baynu nahay imika ayaa leena soo dhaxgaliyaa waxa laakiin waxaan halkan idinka sheegayaa dadka Fuad moodaya qabiilo ku quusta igu quusta aniga dadka Fuad moodaya qabiilo igu quusta aniga xaq darradu inay jirto Jabuuti cidna geedga ma qarsoona waad ogtihiin habeenkii sida aad ii taageerteen sida aad ii soo garab joogsateen sida aad u muujiseen in aad ka xuntiin wixii halka ka dhacay dareen aad ila dareemiseen nin walba waxa godkiisa ku haysta inaad habeenka halka ka daawateen ayaa idin soo dareeriyay taasi ayaa idin kicisay marka maantana waa daawateen fideogii uu idin soo duubay walaalkeen nin waliba waa inay taabato nin waliba waa inuu halka uu ku jiro walaalkeen qofka damiir kale ee reer Jabuuti uu ka murugoonaya uu ka dhiidhiyaya walaalahayo uu ka dhiidhiyaya anigu waxaan goostay aniga oo hooyo ah laba ubada leh inaan labadayda uba 7diisa ku daro ayaan goostay calanka aan sito waad aragtaan waa calankeeni dirayska sharafta leh aan sito waad aragtaan waa dirayskeenii waa dirayska sharaftiisii iyo karaamadii uu lahaa laga xayuubiyay weeyaan waa dirayska uu ku ciilan yahay ninka dirayska siti weeyaan waa dirayska uu ku ciilan yahay ninka sida ninka uu u sido maxaa la dhahaa shicibka uu ku dulman yahay weeyaan shicibku uu ku dulman yahay weeyaan ee loo soo diro afar sida ugu cagcagayso marka ay hadlaan marka ay yiraahdaan waxaan doonaynaa xaqayaga waxaan doonaynaa cadaalad baan doonaynaa loogu soo diro ee lagu muquuniyo waa kani weeyaan ka kasitay uu ku dulman yahay waa kani weeyaan ka kasitay aan galon loo biirin waa kani weeyaan kasitay qabiil loo kala qaado anigu qabiil ma nihin Fuadna qabiil maahe waa qaran ku quuso waan idin sheegay ninkii qabiil moodayo ku quuso anigu halkan waxaan korkayga reer Jabuutiyo idinka hortiina idinka dartiina ayaan u qaaday dirayska idinka hortiinana waxaan halkan ku dhigayaa caawa dirayska ayaan caawa halkan ku dhigayaa aniga oo deeqa ciise duhura waxaan diiday dirayska sharaftiisa ina ana oo ixtiraamaya oo dhowraya ina ilaa inta ay sharaftiisa u soo noqonayso ina aan laalaabto oo meel dhigto ayaan go'aansaday waxaan go'aansaday ilaa inta ay shacbigu ku dulman yihiin dirayskooga in aan korkayga ka dajiyo ayaan go'aansaday waxaan go'aansaday inta uu ka sitay uu ku dulman yahay ayaan dhigaya ayaan dhiganaya dirayskaas marka waxbayaan hadalku ila tararin reer Jabuutiyo waxaan idinka leeyahay waa milay iyo male waa milay iyo male waa milay iyo male kaca soo baxa beritoole ilaa inta aynu ka guul gaarayno waynu karnaa 100 waxa inagu jirta dhalinyaro oo idikeeya oo ninkaasi uu ugu horeeyay halka jiifa ee godka lagu riday way isaga haddaad
maxaa la yidhaha maqli jirteen inuu bedeli doono generaalka anigu caawa waxaan idinka leeyahay inuu madaxweynaha bedeli doono ayaan halka ka sheegaya inuu bedeli karo uu kartideedii leeyahay ayuu noo sheegay in fois encore waxa uuna tusay faybilitega ay leedahay securityga magaaladu isaga oo godkiisii ku jira ayuu telefoon isku soo duubay inaanu security jirin halkaas ayuu idinka cadeeyay encore une fois inaanu wadankani dib habayn u baahan yahay ayuu halka idinka cadeeyay walaalahayo annagu waxaanu nahay hooyada maanta ayaynu nahay ubadkeena haddaynu u soo saari weyno mustaqbalka haddaynu u jeexi weyno hooyooyinkeenii hore waxaanu kaga duwannahay dad wax bartay baynu nahay dad wax bartay ayaynu nahay waa inaynu ubadkeena u jeexno maanta kuwii ka fikirayoon calooshooda ma nihin hooyooyinkeen waxay nagu soo korineen inay caloosheena ka fikiraan yaanu ilmahaagu gaajoon inay ka fikiraan anu ilmahayga gaajadiisa oo keliya kama fikiray waxaan ka fikirayaa avenirkiisa ayaan ka fikiraya shaqada uu qaban doonaan ka fikiraya waxaan doonayaa inuu shaqada uu qaban dooni ay noqoto tu uu ku kasbado wixii ilaahay baray iyo kartidiisa iyo raganimadiisa tu aan la riixin oo ree hebel baa tahay loo riixin ayaan doonayaa adigu haddii aad shoomeer tahay waad og tahay shaqo la-aan inaanay Djibouti inay shaqo la-aantu ay ka jirto Djibouti shaqooyin in la abuuro la karayo la diidan yahay laakiin adiga oo shoomeera ayaad ku calaacalaysaa gurigaagii kaagii shaqada haystay waxa aad ku ciilan tahay shaqadaadii promotion ma heshid waa lagu jirjiraa waa lagu cadibaa nunahaasa lagu hayaa anu hadal idinku soo laakiin shucuurtaydu aad bay caawa u kacsan tahay reer Djibouti aad bay u kacsan tahay walaalahayo aad bay u kacsan tahay ilaa xad waxaan rabaa inaan korkayga ka dejiyo dirayska sharafta leh ee ciziga leh ee karaamada leh ee intaaba lagu tuntay ayaan korkayga ka dejinayaa walaalahayo korkayga ayaan ka dejinayaa bisinka ayaan u qabanayaa qadarin iyo sharaf iyo wanaag iyo maamuus aanu hayo ayaan bisinka ugu qabanayaa وانا كرامه إلهي بانا كسية إلهي أيا كسية من آدني كمسيسو ها korkayga kuma sidayo ilaa ay u soo noqonayso karaamadiisi ilaa ay u soo noqonayso cizigiisi iyo sharaftiisi anigu korkayga ku sidi maayo maanta nafas juwan ilaa uu ka soo baxay halka anigu fuad yusuf ilaa halka ka soo baxay nafas juwan aan feetinayay ima ahaato reer Djibouti ima ahaato calanka uu wiilkiisii uu ku ciilan yahay calanka uu hooyadii ay ku ciilan tahay calanka ay ku ciilan tahay uu ku ciilan yahay bayloodku wuxuu ahaa ninka lagu faano buu ahaa bayloodku wuxuu ahaa ninka la hiigsado ayuu ahaa ee adduunyada ku tartanto ayuu ahaa inagu bayloodkeennii ayaynu gudaafa dhex jeexinay bayloodkeennii ayaynu kaniif dhex jeefinay sidee inoo qabataa inama qabatataa kamana geyno madaxweynaha adeerkay waxaan ku leeyahay adeerkay Ismaaciil Cumar Geele waxaan ku leeyahay abaalkaagii deemilsays kugu ekaato abaalkaagii deemilsays baan guday maanta waxaan gudayaa abaalka shacabka reer Djibouti waxaan gudayaa abaalka walaalkay Fuad Yusuf Ali ayaan gudayaa ayaan leeyahay halka aad igeynaysana anigu diyaar baan ahay aniga faraxsan aniga oo qoslaya aniga oo ku sheegaya inay aniga in iga badan oo iga karti badan ay ku jirto magaalada Djibouti iyo Djiboutiyaanku ay joogaan ayaan ku sheegaya aniga oo qoslayo oo faraxsan aniga oo ku faraxsan xaq aan ku hadlayo aniga oo ku faraxsan inuu Ilaahay iga garab galayo aniga oo ku faraxsan inaan guuleysan doono aan hubo ayaan kula hadlayaa adeero maanta sidii aad igu soo baxdeen reer Djibouti abaalkiini ayaan gudayaa abaalkii waxaan gudayaa oo igu lahaa walaalkay Fuad Yusuf علي مدحيسو هراغو بان ليها ولا لهيو هذا انت ايدين كسي بدن مايو ولا لهيو aad baan idin salaamaya meel walba aad joogtaan ballanteennuna waxay tahay libinta oon gaadhno oon insha Allah
aad soo baxdaan meel walbo aad joogtaan aad soo baxdaan rag iyo dumar iyo ubad iyo dumar iyo dhalinyar waan arkayaa ee raggii may mar walba waxa u horkaca ummadda oo u horseeda waa hooyo ayaa mar walba diidida iyada weeyaan ta inanteedu guriga dibloomada ula dhex fadhiyaan ee la ooyayaan iyada weeyaan ta inanteedu shaqada ay joogaan ay ku ciilan yihiin ee lagu cadaabayo waa iyaga weeyaan waa iyada taxabada baastada ah lagu qaaliyeeyay waa iyada ta mar waliba gunta reerka og waa iyada hooyoy u tur wiilkaaga hooyoy u tur gabadhaada aayahooga ha ka aamusin inta aad u gilgilan karto u gilgilo sida ay noogu soo dhiibeen hooyooyinkeenii soo halgamay inaan annaguna ugu sii dhiibno kartida iyo raganimada ubadkeennu waa lagama maarmaan waa muqadas jabuuti way jiri xumaantuna way tegi inaga oo gacmaha ishaysana oon qas iyo qalalaasa samaynayn oo shaksi keliya diidayno oo leh adeero waan kaa dharagnay haddeed waan kaa dharagnay adeer waan kaa quusanay adeer waan kaa qanacnay haddeed adeer ixtiraamka iyo waalidnimada aan kuu hayo ayaan kugu ixtiraamayaa weli waxaana kaa codsanayaa in aad si qurux badan sida aan kuugu karaameyneen kuugu maamulnay kuu cimaamadnay inaad adiguna uga degto meesha adiga oon dalka qalqalaasa gelin adiga oon dadka dhibaato u keenin annagu waayo dhimasho ayaanu diyaar u nahay haddii ay gaadho dhimasho ayaanu diyaar u nahay tani rag baa usoo dhintay tani dumar baa usoo dhigtay laakiin geesigeyga maanta wuu dhiman gaarideedii maantuna way joogtaayo diyaarba u tahay inay u dhimato geesigeediina diyaar buu yahay inuu dhinto waa kaa isaga oo qoslaya qabrigii aad ku rideen idinka soo diraya fariinta aad bay shucuurteeda u kacsan tahay iga raalli ahaada haddii aan hadalka idinku badiyey laakiin waajib baan gudanayaa waajib diinnimaan gudanaya halka uu salaada ku tukanayo ayaa aad noqotay midaan qaadan kari waayey rajo badanna waan lahaa horena waan idinku soo sheegay hadalka ku noqon maayo aad baan idiin salaamayaa walaalahay waxaan idin leeyahay waynu guulaysan doonaa wanaag baynu ku soconnaa allahu akbar ha lagu soo baxo allahu akbar ha lagu soo baxo allahu akbar ha lagu soo baxo walaalahayo halkaasaan kaga baxayaa hadalkayga aadna waan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومد الرجوتي ضل يدبت بيل والبو أي جوغان وانيغا ديقا عيسى ظهر وحن هلكن كلا هليا ومد الرجوتي دمان تودبا كو دبت جوغان iyo ku dal joogaba waxa halkan maanta isoo taagay oo aan ka hadlayaa waa dhibaatada walaalkeen Fuad Yusuf Ali haysata Fuad Yusuf Ali arintiisu imika ma bilaabmin in badan ayay socotaa arintiisu intaasoo dhan ay socotana waxa aan aniga oo deeqa ciise aan uga aamusnaa rajaan sugay rajo ayaan qabay rajo ayaan ka sugayay madaxweynaha dalka Ismaaciil Cumar Geeli waxa aan ka sugayay inaka arintiisa si wanaagsan loo rido si fiican waxa uu tabanayo iyo waxa uu sheegayo oo runa oo midbeeniye ku jirin ina laga cafiyo la xal marin loo sameeyo la isdaba qabto isaga ayaa maanta madaxweynuhu u ah dalka hogaamiye aabo u dhaxeeya umada waxaan halkan idinka sheegayaa umada reer Djibouti sida aad u dhantihiin rag dumar wiil gabadh yar iyo weyn waxaan idin sheegayaa inaydan geesi ka marnayn ayaan idin sheegayaa waxaan idin sheegayaa inaydan gaari ka marnayn ayaan idin sheegayaa waxaan idin sheegayaa inaydan geesi ka marnayno Fuad Yusuf Ali ayaa geesinimo idinku filan aragti la arko geesi amba la dhandhamiyo waxa idinku filan Fuad Yusuf Ali gaarina
dee isku sheegi maayo way idinka buuxdaa idinka ayay idinka buuxdaa gaari idinka ayay idinka buuxdaa gaari idinka ayaa 24 saacadood dumarka reer Djibouti ay ka hadlayaan facebookyada oo dariiqyada socdaan iyaga iyo ubadku waxaan la hadlayaa ummadda reer Djibouti baan la hadlayaa degta si fiican u fura reer Djibouti dulmiga halka aad ka arkaysaan ee 24 saacadood halka la idinka tusay waa wax la inagu itixaamayo waa wax ilaahay inagu itixaamayo waa wax maalinka qiyaamaha layna soo joojin doono laynagu itixaami doono layna weydiin doono walaalkeena ku tukanaya kaniifka ku dhex tukanaya ee kaniifka ku dhex nool waxa aynu uga hadli weynay waa layna weydiin ma garanayo inaad aragteen inaad la dareenteen inta uu Fuad xiran yahay 2 jeer ayuu dalku gariiray Djibouti 2 jeer ayuu dalku gariiray inaan kaliga yahay iyo inay umadu ila dareentay way soo sheegi doonaan waxana calaamado ku tusaysa in la idinka doonayo ficil inaad sameysaan reer Djibouti hadal iyo waqtigii hunu loo baahnaa midtoona ma joogno aniga oo deeqa ciise duhura waxa aan halkan aan idinka leeyahay oon maxaa la yiraahdaa idinka soo diraya fariin aad u culus oon ku doonayo beri toole jimcaha inaad ku garab joogsataan walaalkiin Fuad Yusuf Ali oo qabri looga dhigay kaniif looga dhigay qabri oo noloshiisa dhimashadii ku sugayay halka geesi kama madidin waan idinku calinaya 100 Fuad ay idinku jira 100 Fuad ayaa idinku jira 200 oo Fuad ay idinku jira milyoonkeenuba waxaynu nahay wada Fuad milyoonkeenuba waxaynu wada nahay gaari waxaynu nahay dadka aan iskala qaadqaadin baynu nahay imika ayaa layna soo dhaxgaliyaa waxa laakiin waxaan halkan idinka sheegayaa dadka Fuad moodaya qabiilo ku quusta igu quusta aniga dadka Fuad moodaya qabiilo igu quusta aniga xaq darradu inay jirto Djibouti cidna geedga ma qarsoona waad ogtihiin habeenkii sida aad ii taageerteen sida aad ii soo garab joogsateen sida aad muujiseen in aad ka xuntiin wixii halka ka dhacay dareen aad ila dareemiseen nin walba waxa godkiisa ku haysta inaad habeenka halka ka daawateen ayaa idin soo dareeriyay taasi ayaa idin kicisay marka maantana waa daawateen fiidiyoogii uu idin soo duubay walaalkeen nin waliba waa inay taabato nin waliba waa inuu halka uu ku jiro walaalkeen qofka damiir kale ee reer Djibouti uu ka murugoonaya uu ka dhiidhiyaya walaalahayo uu ka dhiidhiyaya anigu waxaan goostay aniga oo hooyo ah laba ubada leh inaan labadayda uba 7diisa ku daro ayaan goostay calanka aan sito waad aragtaan waa calankeeni dirayska sharafta leh aan sito waad aragtaan waa dirayskeenii waa dirayska sharaftiisii iyo karaamadii uu lahaa laga xayuubiyay weeyaan waa dirayska uu ku ciilan yahay ninka dirayska siti weeyaan waa dirayska uu ku ciilan yahay ninka sida ninka uu u sido maxaa la dhahaa shicibka uu ku dulman yahay weeyaan shicibku uu ku dulman yahay weeyaan ee loo soo diro afar sida ugu cagcagayso marka ay hadlaan marka ay yiraahdaan waxaan doonaynaa xaqayaga waxaan doonaynaa cadaalad baan doonaynaa loogu soo diro ee lagu muquuniyo waa kani weeyaan ka kasitay uu ku dulman yahay waa kani weeyaan ka kasitay aan galon loo biirin waa kani weeyaan kasitay qabiil loo kala qaado anigu qabiil ma nihin Fuadna qabiil ma ahe waa qaran ku quuso waan idin sheegay ninkii qabiil moodayo ku quuso anigu halkan waxaan korkayga reer Djibouti idinka hortiina idinka dartiin ayaan u qaaday dirayska idinka hortiinana waxaan halkan ku dhigayaa caawa dirayska ayaan caawa halkan ku dhigayaa aniga oo deeqa ciise duhura waxaan diiday dirayska sharaftiisa ana oo ixtiraamaya oo dhowraya ilaa inta ay sharaftiisa u soo noqonayso aan laalaabto oon meel dhigto ayaan go'aansaday waxaan go'aansaday ilaa inta ay shacbigu ku dulman yihiin dirayskooga aan korkayga ka dajiyo ayaan go'aansaday waxaan go'aansaday inta uu ka sitay uu ku dulman yahay ayaan dhigaya ayaan dhiganaya dirayskaas marka waxbayaan hadalku ila tararin reer Djibouti waxaan idinka leeyahay waa milay iyo male waa milay iyo male kaca
صباح بريتولة إلا أنت أينو كقول قارينو وينو كرنا بقول waxa inagu jirta dhalinyaro oo idikeeya oo ninkaasi uu ugu horeeyay halka jiifa ee godka lagu riday way isaga haddaad maxaa la yiraahdaa maqli jirteen inuu bedeli doono generaalka anigu waxaan idinka leeyahay inuu madaxweynaha bedeli doono ayaan halka ka sheegaya inuu bedeli karo uu kartideedii leeyahay ayuu noo sheegay in fois encore waxa uu na tusay fiabilityga ay leedahay securityga magaaladu isaga oo godkiisii ku jira ayuu telefoon isku soo duubay inaanu security jirin halkaas ayuu idinka cadeeyay encore une fois inaanu wadankani dib habayn u baahan yahay ayuu halka idinka cadeeyay walaalahayo annagu waxaanu nahay hooyada maanta ayaynu nahay ubadkeena haddaynu u soo saari weyno mustaqbalka haddaynu u jeexi weyno hooyooyinkeenii hore waxaanu kaga duwanahay dad wax bartay baynu nahay dad wax bartay ayaynu nahay waa inaynu ubadkeena u jeexno maanta kuwii ka fikirayeen calooshooda ma nihin hooyooyinkeen waxay nagu soo korineen inay caloosheena ka fikiraan yaanu ilmahaagu gaajoon inay ka fikiraan anu ilmahayga gaajadiisa oo kaliya kama fikiray waxaan ka fikirayaa avenirkiisa ayaan ka fikirayaa shaqada uu qaban doonaan ka fikirayaa waxaan doonayaa inuu shaqada uu qaban dooni ay noqoto tu uu ku kasbado wixii ilaahay baray iyo kartidiisa iyo raganimadiisa tu aan la riixin oo reer hebel baa tahay loo riixin ayaan doonayaa adigu haddii aad shoomeer tahay waad og tahay shaqo la'aan inaan Djibouti inay shaqo la'aantu ay ka jirto Djibouti shaqooyin in la abuuro la karayo la diidan yahay laakiin adiga oo shoomeera ayaad ku calaacalaysaa gurigaagii kaagii shaqada haystay waxa aad ku ciilan tahay shaqadaadii promotion ma heshid waa lagu jirjiraa waa lagu cadibaa nunahaasa lagu hayaa anu hadal idinku soo laakiin shucuurtaydu aad bay caawa u kacsan tahay reer Djibouti aad bay u kacsan tahay walaalahayo aad bay u kacsan tahay ilaa xad waxaan rabaa inaan korkayga ka dajiyo dirayska sharafta leh ee ciziga leh ee karaamada leh ee intaaba lagu tuntay ayaan korkayga ka dajinayaa walaalahayo korkayga ayaan ka dajinayaa bisinka ayaan u qabanayaa qadarin iyo sharaf iyo wanaag iyo maamuus aanu hayo ayaan bisinka ugu qabanayaa وانا كرامه إلهي بانا كسية إلهي أيا كسية من آدني كما سيسو ها korkayga kuma sidayo ilaa ay u soo noqonayso karaamadiisi ilaa ay u soo noqonayso cizigiisi iyo sharaftiisi anigu korkayga ku sidi maayo maanta Vincent Juan ilaa uu ka soo baxay halka anigu Fuad Yusuf ilaa halka ka soo baxay Vincent Juan aan feetinayay ima ahaato reer Djibouti ima ahaato calanka uu wiilkiisii uu ku ciilan yahay calanka uu hooyadii ay ku ciilan tahay calanka ay ku ciilan tahay uu ku ciilan yahay bayloodku wuxuu ahaa ninka lagu faano buu ahaa bayloodku wuxuu ahaa ninka la hiigsado ayuu ahaa ee adduunyada ku tartanto ayuu ahaa inagu bayloodkeennii ayaynu gudaafa dhex jeexinay bayloodkeennii ayaynu kaniif dhex jeefinay sidee inoo qabataa inama qabatataa kamana geyno madaxweynaha adeerkay waxaan ku leeyahay adeerkay Ismaaciil Cumar Geele waxaan ku leeyahay abaalkaagii deemilsaysa kugu ekaato abaalkaagii deemilsays baan guday maanta waxaan gudayaa abaalka shacabka reer Djibouti waxaan gudayaa abaalka walaalkay Fuad Yusuf Ali ayaan gudayaa ayaan leeyahay halka aad igeynaysaan anigu diyaar baan ahay aniga faraxsan aniga oo qoslaya aniga oo ku sheegaya inay aniga in iga badan oo iga karti badan ay igu jirto magaalada Djibouti